sidaas ay dhinacyadani isku xabadeynayaan waxayna isku adeegsanayaan hubka kiisa fudud iyo kan culus oo waxba la isku reeban. haddii aan ku dhahay dagaalkan waxa uu gaaray ilaa iyo heer dhinacyadani ay maxaabiis kala qabsadaan, maryo dhiig leh ayaa la kala furtay, xitaa dhaawaca ayaa markaasi la isku kala qabsanayay. dagaalka qaraar ee dhinacyadan dhexmaraya waxa uu si gaara uga dhacayaa deegaanka Buuqdharkayn ee gobolka Sanaag, halkaasi oo xilligan aan kula hadlayo xaalad kacsanaana ay ka taagan tahay. mala dhiban tahay oo ma isku aragtaa qandho joogto ah, madax xanuun, laba zaa'id ah, bogo iyo beerka oo ku olola, tabardarro zaa'id ah, xubnaha oo ku xanuuna ama socodka oo ku dhiba, indhuhu ma ku madoobaadaan. kaalay waxaan ku hayaa dhakhtarkaagii. Isbitaalka Fiqi Hospital waxaa kugu diyaaro 24 saac xigan kugu ah dhakhtar Fiqi oo in ka badan 30 sano takhasus leh. caafimaadku waa qaali iyo hadda gaar isbitaalka Fiqi oo kumaan eebo uu ku caafiyay ama kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda. asal ahaan weerarkan waxaa hore u soo qaaday ciidanka Somaliland oo si gaadma ah weerar ugu soo qaaday ciidanka maamulka waqooyi bari Soomaaliya ee markaasi fariisinka ku leh difaacan ugu jira aaga magaaladani Buuqdharkayn oo ka tirsan gobolka Sanaag. si kastaba ha ahaatee dhinacyadani dagaal qaran ayaa dhexmaray daawadayaal, si dhab ah oo xaqiiqa iyo tiro rasmi ah oo aynu ka heli karno dhaawac iyo dhimashada ma jirto. haddii ay soo baxaan natiijo dhab ah halkan ayaan kugula wadaagi doonaa. nagu dhiirigeli daawad inaad muuqaalkan like saarto, siina share garayso intii ku dhimatay iyo aragtidaada bal dhanka iyo commentiga. nabadgelyo.